labadii boqol buu gabadhii u keeno markaasuu yidhi nabal dabka ugu shidil ma gabadhii markay xoogaagii qaaday meel bay saaratay dabka shidiidiisa u dhaqaaqday lacagtii oo meeshii saaran isaguna meesha taagan yahay gabadhiina dabka ku maqanta baabuurkii qaadka waday baa soo guuxay labadii boqol ee meesha saarnayd buu intuu xaday oo jeebka gashaday buu la dhaqaaqay gabadhii wareertay war labadii boqol yaa xaday marma dabayl baa qaadatay rafaaday in badan oo ragga ka mid ah caruurtoodii iyo guryahoodii baa dayacan waxoogaagii ay heleen qaad bay gelinayaan danna reerka ma laha yani mushkila ijtimaaciya mushkila usariya xoolihii waa baabiinaya tarankii waa baabiinaya waxa ugu dambeeya ama uu baabiinaya daruurada shanaade ay tahay waa hantida inuu baabiinayana waa iska cadahayo xoolihii aynu ku dhididnay oo aynu xamaalnay oo aynu ku rafaadnay oo silca inugu soo galay baa intaan qaadno oo nusunta ku iibinno ayaan haddana lafaheenna ku gubaynaa oon diinteenna ku gubaynaa oon caqligeenna ku gubaynaa oon guryaheenna ku gubaynaa sidaas daraaddeed xoolihiina waa gubayaa oo maanta silca ina haysta haddaad aragtaan haddaad xisaab yar la sameeyo maalin kasta magaaladan keliya inta qaad imaanaya iyo lacagta ka noqonaysa haddii la xisaabiyo lacag aad u fara badan bil markii lagu dhufto waa lacag aan la xisaabin karin sanad markii lagu dhufto magaalada Hargeysa oo dhan bay bedeli lahayd lacagtaasi sanad markii lagu dhufto Hargeysa oo dhan wax nuuraya ka dhigi lahayd laakiin aaway qolyihii beeran jiray baa tuulooyinkooda ku dhistay bal soo arka meelaha qaadka lagu beero iyo beeruhu meeshay ka baxaan tuulo yar oo tuulo ah baa waxaa ka dhisan 4 dabaq 5 dabaq baa ka dhisan war lacagtan xagee ka timi ilkihii Soomaalidii lacagtoodii baa laga dhisalay ilkihoodii lacagtoodii baa laga dhisay annagii marka waa khasaarsannahay hantitanadii dad kala guranaya dal baa lagu dhisanaya waxbarasho lagu samaysanaya caafimaad baa lagu samaysanaya horumar baa lagu samaysanaya annagiina waa gubanayna xoolahanagi halkaas ay maraya ayu aqlin hada yani wax macquul ama hantida nabiga salawaatu rabbi wasalaam alayhi sidoo tilmaamay alla waa nacab yahay oo waa idin karaahaysan inaad hantida dayacdaan hantidu waa lafdhabarta nolosha xooluhu waa lafdhabarta nolosha sidaas daraadeed baa la xarimay in lagu ciyaaro meel khalada in la geliyo maalinta qiyaamada markaad rabbiga hor tagto waxa lagu weydiin doona waxa kamida xoolahaagi xaggay ka soo galeen xaggeesa ku bixisay min ayna iktasaba wa fima anfaqa allana wuxuu ku tilmaamay kuwa xoolaha ku ciyaara oo meel khalada ku bixiya inay shayaadiinto kale yihiin buu alla sheegay tabaaraka wa taala wa shayaadiino kale way innal mubadhirina كانوا إخوان الشياطين سيداس دراديد حولهني إنان كعيارنو oon ka qatanaano oo ummadeenu gaajo u baaba'do oo magaalooyinkeenu silcay joogan oo dalkii hormari waayo maalin walbana malaayiin lacag la inaga qaatay wax aqli la wuxuu ku fikira ma aha